weligaa ma furtay linkii aanad hubin? Weligaa maad aragtay taleefankaaga oo kaamiradu shidan tahay adiga oona taaban? Ka waran haddii qof ku daawanayo adiga oon ogeyn amba aan ogsooneyn? Haddaba daawaday, si aan kuu tuso meel dhow aan kaa tusayaa, tusaale ahaan baan ku siinayaa si aad u fahanto. Habeen madow ayay ahayd, keligaa ayaa qolka fadhiya, taleefankaagana gacantaad ku haysataa. Link ayaa kugu yimid oo lagaaga soo diray platformskaaga kala duwan sida WhatsApp amba TikTok-taadaba. Haddaba maxaa dhici kara ayaad isweydiisay haddii aan hal gujiyo linkigaas laga soo diray? Muxuuna yahay linkigaasi? Daqiiqado kadib, kaamiradii ayaa iftiintay. Yaa ku daawanaya? Haddaba su'aasha isweydiinta waxay tahay, yaa ku daawanaya? Halkuu soo joogo qofkan ku daawanayay? Ma anigaa ogolaaday mise waa la khiyaameeyey? Haddaba muuqaalka oo dhammaystiran waad daawan doontaa, si practical ahaana waan kuu tusi doonaa. Ka hor intaanan gudagelin muuqaalkeena, waxaan kaa codsan lahayd subscribe iyo linkiga gambaleelka kala furo si ay mataqaanaa mar walba aad ula socoto. Waan ognahay muuqaaladiina markasta ma soo badino, labadii isbuuc mar baan soo dhignaa, laakiin taa beddelkeeda waan soo dhigi doonaa insha Allah hadii waqtigiina wuu bedeli doonaa. Iminka haatanna aynu gudagalnaa muuqaalkeena. sameynaa marka ugu horeysa waxaad tegaysaa marka ugu horeysa waxa weeye waa kaalin nagasta virtual box ka tegaysaa. Okay, barta markaad timaado waxaad tegaysaa terminalkaaga. Okay, terminalkaaga markaad imato waxaad sameynaysaa sumeerdho, waxaad dhahaysaa barta baad ku qoraysaa get clone baad iyo sameynaysaa. Then waxaad imanaysaa Firefox-taada amba waxaad tegaysaa browser-ka kaad isticmaasho ama kan baad isticmaali kartaa. Okay, waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa waxaad tegaysaa waxaad soo copy garaysanaysaa code-kaas. Haddaad u baahan tahay code-kana waxaad ku qoraysaa search-ga camfish teachbinet camfish baad ku qoraysaa, kadib kaa baad ka tegaysaa. Then waxaad sameynaysaa waxaad soo copy garanaysaa linkigaas. Linkiga ma soo copy garan waxaan tegaynaa hadda virtual box-keedii. linkiga hadda barta waan ku copy garanaynaa, paste baan dhahaynaa, enter baan siinaa. Aniga hadda wuxuu ii diidayaa mid hore ku sii jira oo aan sii isticmaalay. Waan tegayaa home, waxaan tegayaa faylasha. Then camfish-ka igu sii jiraan ka dhigayaan meesha ka saaraya kan. Kan baan ka saarayaa trash. Okay, trash-kan ka sii saarayaa. Waxaan sii dhahayaa delete from trash. Yes, delete baan iska dhahayaa sababtoo ah dee haddaan isticmaalo wuu diidayaa. Iminka mid cusub baan sameynayaa get clone mid cusub kan iminka enter. Iminka ma diidi karo hadda caadi u shaqeynayaa. Okay, waxaan sameynaa iminka haddaba remove markuu kuu soo saaro waxaan ku qoraynaa cd camfish baan ku qoraynaa. Xarfahan iska sax xarafka wala capital sababtoo dee xarfaha qaar buu diidaa. cd camfish ma qorto ugu soo baxay. Then waxaad sameynaysaa ls oo list files ah. Then barta markuu ku keeno waxaad sameynaysaa cd camfish.sh baad daawanaysaa ugu soo baxaya iminka haddaba uu yar diidaya iminka. waxa weeye waa bash. waxaan ku qoraysaa waa bash camfish.sh baad qoraysaa. Waka bartan buu keenaa haddaba iminka. Bartan markuu ku keeno waxaad sameynaysaa labada option buu ku saaraya waa ncrog iyo crucifier tunnel. waxaad taabanaysaa crucifier tunnel-ka sababtoo ah wuxuu sameeyaa crucifier tunnel-ku wuxuu ku siinayaa maxay ahayd link toos ku siinaya isagoo caadi oo crucifier-ka ma taqaanaa ku samaysan. Okay, saddexdaad ku soo dhigay saddexda xaraf. Ma waxaad rabtaa festify inaad qofka ku khiyaanayso mise live youtuber mise online meeting? waxaad dhahaysaa festival oo ciidaha waxaas oo kala. Okay, waxaad sameynaysaa haddaba festivalkaaga samaysanaysaa adigu kuu gaarka ah. Iminka tusaale ahaan waxaad samaysan anagu waa ramadaan baa sugu soo ma qofkaad ku khiyaamayso waxaad ku qoraysaa ramadaan mubaarak festival intaa waa samaysanaysaa. marka inta samaysato waxaad dhahaysaa enter. haddaba wuxuu samaynayaa iminka wuxuu kuu soo qorayaa wuxuu kuu sameynayaa crucifier-kaagii
linkigii ku sameeyaa alaabtaada dhammaystiran ku sameeyaa okay wuxuu ku siinayaa dhigto markaa linki buu ku siinayaa soo waqti yar baa sugna waqti yar wuu noo sameeyaa imika markuu noo sameeyo wuu noo soo dhigayaa okay time yar baan sugnaa markaan yar wax yar soo haddaba saa u jeedaan wuxuu sameynaya marka ugu horeysa linkigaas aad u jeedin imika waa linkigii noo sameeyey weyti waa linkigii targetkii weyti au noo sameeyey weyti canfishku okay linkigaan soo koobi garanaynaa copy baan dhahaynaa copy linkigaas markaa soo koobi garayso qofka victimka ayaad ugu tala gashay iyaad u diraysaa waxaad dhahaysaa copy link okay copy link markaa taabado waxaan u diraynaa qofka targetkii noo ah yaan u diraynaa imika soo haddaba saad u jeedaan linkigii waxaa kaban inii soo dhigay waxaad samaynaysaa linkigaas bartaa baad ku jiisaa dhig markaad ku dhufato rabadaan muqaarab ka qoraysaa allow qofaas dhahayaa kadib si automatic ayuu iskaga qaadayaa kaameradii sawiraanta qofkaas targetka ama victimka ah sawiraan buu ka qaadaya ama video okay saa u jeedaan imika barta ma noo soo dhigay halkan ma noo soo dhigay xogtiisa oo dhan API addresskiisa oo kaas API addresskiisu okay sidoo kale wuxuu ka qaaday sawiraan buu qaaday sawiraantaas saan aragnaa haddaba imkaan isla eegnaa barta waan inii soo dhigay videoga okay waxaad tagaysaa waa baleskaaga tagaysaa soo haddaba waxaad samaynaysaa waxaad tagaysaa baleska tagaysaa homeka baleska tag baleska home sawirada u qaadan haddaba isla eegnaa imika canfishkaas bartaas waa kuwan sawirada haddaba imika halkaas imika qofkan waa aniga weji haddaan ku dhuftay daanaad tooskii aragtisiin laakiin sawiradu way shaqaynayaan toos u shaqaynayaan sawiradu haddaan ku dhufto imika way shaqaynayaan sawiradaasi marka victimkii sawiradu ka qaaday saad u jeediin sawiradu ka qaaday intaas sawir ka qaaday halkan buu kusoo dhigayaa haddaba tricking iyo khiyaanada waxaa la isticmaalaa badanaa dee dadka CID da isticmaalaa oo qofka mataqaanaa victimka la rabo in la ogaado ama la basaaso ayaa lagu ogaado qofkaas si loo soo qabto qofkaas okay gabagabadii muuqaalka waxaan ku leeyahay haddaad rabtin iska ilaalisidna linki weligaa isku furin linki isku furin haddaad linki furisidna linkiga waxaad iskaga hubin kartaa waa website-kan weji website-kan baad iskaga hubin kartaa waxaad ku qoraysaa kan iga saar kanna okay waxaa la yidhahdaa virus total baa la yidhahdaa okay kan baad ku dhufanaysaa linkigaas haddaad doonaysa iska ilaalisi weji waxaad samaynaysaa linkiga markuu ku keeno meeshan waa kan URL-ka haddaba linkigii aan u baahnayn ayaa soo koobi garaynaa malaad ma koobi garaysan imika base baan dhahaynaa hawa kale linkiga oo kaas may kan linkigii maaha kani maaha linkigii waa ku khaldan weji kaan u baahnay waxa weji waxaan samaynaa linkigii ayaan bartan ku koobi garanaysaa oo kaas search baad dhahaysaa search markaad dhahdo haddaba bartan buu kugu kala caddaynaya website-ka inuu yahay linkiga inuu yahay linki qaldan amba linki sax inuu yahay website-kan baa ku kala sheegaya okay wuxuu sheegayaa haddaba website-kani analyze ku saaray oo kaaday muxuu soo saaray malicious ayuu soo saaray uu qaldan yahay linkigani waa linki qaldan weji oo malicious oo kaas as malicious buu yiri oo kaa ku sheegay security folder markaas linki sax hadduu yahayna wuxuu ku soo saarayaa green akhtar buu ku soo saarayaa amba cagaar saad u taqaanid okay gabagabadii muuqaalka haddii tahay inta hadda nala soo gaadhina follow iyo like ta tiktok tan iyo la socodka Facebook aba wanaagsantiin